dhinaca kale dad badan ayaa qaba in sii deynta qalbi dhagax ay ku timid isbeddelka siyaasadeed xawliga ku socday uu la yimid ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. golaha wasiirada xukuumadda Abiy ayaa baarlamaanka Itoobiya u gudbiyey qaraar looga saarayo ururada ONLF iyo Gimbood 7 liiska argagixisada ay dowladda Itoobiya hore ugu dartay. haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey oon ka waraystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. waaadu ma dhamaatay iyo reer Djibouti buu yidhaahdaa waxa weeye madaxweynihii Soomaaliya ay u tageen dadka xamar ugu miisaan roon markay dadnimo iimaan iyo wax walba noqoto ay bariyeen inuuna qalbi dhagax Itoobiya u dhiibin uu ka diiday 2-3 jeer ayaa maskaxdooda soo galaysa inay qalbi dhagax u dacwiyaan si loo soo sii daayo wax meesha gali kara maaha. marka waxa weeyaan run haddaan la sheegayn wax run u eg sheeg baa la yidhaahaa adduunyada. marka ninkan safiirka ah ee Itoobiya u jooga magaalada Muqdisho waxa weeyaan hadhaaga laga takhalusayo Itoobiya ayuu ka mid yahay. markaasi uu fursad u helo isaga qudhiiso ayuu sii naaxinaya. laakiinse xaqiiqda Addis Ababa la iga soo sheegaya waxa weeye weliba dowladda cusub ku dhex jira ay soo sheegayaan waxa weeye inay ku timiday si loo xalaaleeyo ONLF iyo qolooyinka kaleba in dadka lagu haysto wax een gacantooda dhiig aan lagu hayn in la sii daayo. marka inay dowladda Soomaaliyeed sheegato dee waxba kama aanan qabnin oo aan ku farxin lahayn haddaan Soomaali nahay laakiinse wax runa maaha walaa. waan gartay isla arrintaas ku saabsan ONLF iyo in Itoobiya ay maartay safxad ama bog cusub noloshooda u furaan 3 urur ayaa dowladdu soo jeedisay oo baarlamaanka geysay in laga qaado calaamadii ahayd inay argagixisan yihiin. arrintaasi inagoo si gaar u eegayna ONLF oo ah urur dhinaca ismaamulka Soomaalida ama dhulka Soomaalida Itoobiya ka tirsan inteen leeg bay arrintaasi ka qayb qaadanaysaa deganaanshaha gobolka Soomaalida. walaal waxa weeye Itoobiya guud ahaanba ninkan ra'iisul wasaaraha cusub ee Oromo ah horta dadku waa inay fahmaan waxa keenay ma aha isagu wax gooni u kasbaday. waxa weeyaan dhaqdhaqaaqii dadka Oromada iyo Axmaarku waxay lahaayeen gaar ahaan Oromada oo Addis Ababa iyo hareeraheegaba ku badan waa la xukumi kari waayay dowladda hore wax xukumi kari weyday. marka sida qore loo hersayo fursad in la dejiyo wadanka waxa timiday dad ku jira guddiga xisbiga Oromada oo laftahayn oo isagu runtii ka yahay hormood ayaa keentay arrinta. marka haddii horta in la kala saaro 3 xisbiye la leeyahay ama jabhadood la leeyahay waa la kala saaray. kan ku horeeya ta Oromadu waxa weeyaan marka taariikhdeeda ay mid dhammaan dadka Oromada intiisa badani hay aaminsanaayeen iyaga ayaa mar dambe kala jabay. marka waxay keenayaan miisaan cusub ayay u soo kordhinayaan dowladda Itoobiya gaar ahaan garabka Oromada. qolooyinka kale Axmaarka iyo waxaan kaasna Axmaarkuna waa kuwii gobolkooda ka kacay ee dowladdii qaranqeyrka qudhoodu geliyay taasina miisaan kale soo kordhinaysa. laakiin qolooyinka Axmaarada waxay isleeyihiin Oromada waad u haysan kartaan waad ka qaadan kartaan wixii nagu dhiibta ee horta Tigrayga meesha laga saaro. taasina khalad weyn ayay noqon doontaa oo gilgil doona gobolka Axmaarada iyo wadankaba haddii la fahmi waayo. ta ugu dambaysa ONLF waa jabhad weeyaan jabhad waliba reer magacooga sheeganaysa waa Soomaalida badan ee degan Itoobiya ama ha ahaadaan dadka haybta sheeganaya ama kuwa kale ha ahaadaan dadkaasi waxay doonayaan inay gobonimadooda helaan inay hadday Itoobiya ka mid noqonayaan xalaal iyo koox oo gobolkooda u tashanaya oo ka qayb qaadanaya. ONLFna taariikhda waxa u galay waxyaabo aan la qaadan karin oo kamid ah mesela markii isbedelkii hore dhacay Itoobiya ee 90-meeyadii dood ayaa ka dhacday magaalada Diradaba. doodaasi waxay ahayd caasimadda gobolka Soomaalida inay Diradaba noqoto. ONLF ayaa ku kaliftay dadkii in ay iyagu u soo raraan magaalada Goday. marka ma aha dad kalsooni Soomaalida gobolkaas oo deganta ka haysa waa qolo gaara. dad way jiraan ku dhex jira oo xalaala oo iimaan leh laakiinse marba hadday sheeganayaan inay yihiin reer waxay la mid noqon karaan reeraha kale Soomaaliya degana mid walba xisbiga samaystay walaal SNM iyo wixii la mid ahaa USC iyo SDF iyo waxaasay noqonayaan walaal. waan gartay shalay waxaa gobolka ismaamulka Soomaalida laga bilaabay in la soo saaro saliid. arrintaasi waxay dhalisay dareenno kala duwan. dadka qaar odhanaya alleylehe maantu horumarkii ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya guud ahaan bilaabmay halka dadka qaar oo ONLF ay ka mid tahay afayeenkooda aan wareysanay ay leeyihiin waa xoolihii ummadoo la dhacayo iyadoon heshiis buuxa
oo dhinaca wada hadalka iyo nabadeynta gobolka laga gaadhin in hawl la bilaabo aragtidaad arrintaas ku aadan walaal waxa weeye waa horta waa ilaahay haddii in gobol Soomaali degan tahay khayraad caynkaas laga helo laakiinse dhinacna way ku saxsan yihiin oo aan laftu dhinacna way ku khaldan yihiin dhinac way ku saxsan yihiin waxa weeyaan in laga baaraan dego sidii hantida gobol kastaba ka soo baxaysa wixii gobolku gaar u leeyahay iyo wixii qaranka oo dhan wada leeyahay in laga wada hadlo waa wax wanaagsan oo meel isla dhigo laakiinse way ku khaldan yihiin inay yidhaahdaan hal la joojiyo doodu waxa weeye inay noqoto hantida ka soo baxaysa ilaa inta laga heshiinayo ee la dhigayo sharcigii loo qaybin lahaa ummadaha kala duwan waxa gobolkooda ka soo baxa waxa u xaraya iyo waxa qaranka Itoobiya leedahay hantida meelaha formulaha loo sameeyo annaguna aanu ka qayban haddaan Soomaalinahay laakiinse hal la joojiyo cid ka dhageysanaysaana ma jirto xaqna ma aha runtii waxa weeyaan doodu inay noqoto waxa ka soo baxaya miisaaniyada ka soo baxaysa in la ogaado xiriirka kumbaniga Shiinaha soo saaray iyo dawladda Itoobiya wuxuu leeyahay waxay Chinese ku qaadanayaan iyo waxa Itoobiya leedahay iyo waxa Soomaali u soo xari doona doodu waa inay ka noqotaa ma aha hal la joojiyo ma hawla kaasi waxa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barakaha jaamacadda Minnesota khadka telefoonka ee gobolkaasi ayuu